waftigan miisaanka cusla ee uu hogaaminayay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo martiqaad rasmiya ka helay dowladda federaalka Itoobiya ayaa ka soo degay gagada diyaaradaha ee Polo International airport ee caasimadda waddanka Itoobiya ee Addis Ababa waxa si diiran oo kaliya laba aadna u luxdan meeqaamkeeduna sarreysa ugu soo dhaweeyay kuna qaabilay waftiga uu horkacay madaxweynaha Soomaaliland madaarka Addis Ababa wasiirka wasaaradda dibadda ee dalka Itoobiya oo weheliyo wasiirka gaadiidka ee dowladda Itoobiya iyo mas'uuliyiin sarsare oo kamid ah dowladda dhexe ee Itoobiya waxa sidoo kale door weyn ka ciyaaray soo dhaweynta loo sameeyay waftiga madaxweynaha Soomaaliland ee dalka Itoobiya safarada ay Soomaaliland ku leedahay dalka Itoobiya mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaranka Soomaaliland markii uu ka soo degay diyaaradda sida isaga iyo waftigiisa waxa loo dhigay roog gacas ee astaanta u ah laguna maamuuso madaxweynayaasha ra'iisul wasaarayaasha iyo madaxda kale ee soo booqata dalka Itoobiya soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay waftigan uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka turjumaysa sida ay dowladda federaalka Itoobiya ay u danaynayso dardargelinta iyo xoojinta cilaaqaadka cudurna u dhaxeeya labada wadan isla markaana la iskaga kaashan lahaa waxyaabaha aasaaska u ah ama daruuriga u ah labada dhinac madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisu waxay qadar nasasho ay ku qaateen qaybta VIP-da ama marti sharafta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo ka hadlay madaarka gudihiisa ayaa waxa ay tilmaameen muhiimadda ay leedahay xiriirka labada wadan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo dhaweynta waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland waxaana uu ka waramay cilaaqaadka u dhaxeeya wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga uu hogaaminayay waxa xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Master Haile Mariam Desalegn waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ay ka wada hadleen intii uu kulankaasi u socday sidii la iskaga kaashan lahaa korna loogu qaadi lahaa arrimaha adkaynta ammaanka ama nabadgelyada kor u qaadista dhaqaalaha ganacsiga la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeeda xoojinta daris wanaaga ka hortagida wax kasta oo carqaladayn kara cilaaqaadka muddada dheer ay wada lahaayeen wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya waxaa kaloo kulankaasi laga wada hadlay sidii la iskaga kaashan lahaa arrimaha ganacsiga iyo baayac mushtarka iyo qodobo kale oo dan u ah Soomaaliland iyo Itoobiya markii laga soo baxay kulankaasi ayaa waxa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Master Haile Mariam Desalegn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa cilaaqaadka ay wada leeyihiin labada wadan la iskaga kaashan lahaana arrimaha nabadgelyada dhaqaalaha siyaasadda iyo waliba qodobo kale We have discussed several issues about security, economical development cooperation of our countries, political issues on the Horn of Africa, especially between our two countries, and we are very thankful for his welcome and cooperation with our two nations. ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Master Haile Mariam Desalegn oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka wada hadleen sidii la iskaga kaashan lahaa qodobada muhiimka u ah labada wadan gaar ahaan arrimaha nabadgelyada ilaalinta xuduudaha kor u qaadista dhaqaalaha ganacsiga iyo baayac mushtarka. We discussed on issues of security because we believe that Ethiopia's security is security for Somaliland and Somaliland's security similarly is that of Ethiopia. waxaana uu ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya uu soo qaatay maalgashiga marsada caalamiga ee Berbera oo uu sheegay inay muhiim u tahay labada wadan ee Somaliland iyo Ethiopia. Already started to work to develop Berbera corridor together with Somaliland, and we continue on with our partners to develop this corridor so that we benefit from
this development in a win-win manner. waxaa kale oo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya uu sheegay sida ay muhiimka u tahay in Soomaaliland iyo Itoobiya ay markasta iska kaashadaan kana wada shaqeeyaan nabadda iyo la dagaalanka argagixisada. Axmed Saki Daahir Xasan iyo Ibrahim Eagle warbaahinta qaranka Soomaaliland caasimadda waddanka Itoobiya ee Addis Ababa.